haatanna waxaad ku soo dhawaataan dhegeystayaal barnaamijka galka baarista waxaa inoo soo jeedinaya wariyahayaga Haaruun Macruuf. tobankii bishii Maarso ee sanadkan waxaa xariga laga jaray garoonka diyaaradaha ee magaalada Baraawe oo dhismihiisu uu soo socday in muddo ah. waxaa madaxda dowladda Soomaaliya iyo xubno ka tirsan beesha caalamka ay u boqoleen magaalada Baraawe halkaas ay ugu dabaaldegeen munaasabadda ay magaaladaasi markii ugu horeysay taariikhdeeda ku yeelatay garoon diyaaradeed. waxay si kalsooni leh ugu dhawaaqeen inay ku baxday $4,300,000 hase yeeshee maalmo kadib farxadda furitaanka garoonka waxaa hadheeyey wararka iyo muuqaalada ka imanaya magaalada Baraawe kuwaasi oo tusinayay dhul ka mida barxadda baabuurta la dhigtay ee garoonka oo diistay kadib markii ay u adkaysan weysay roob culus oo ku da'ay. maamulka magaalada Baraawe iyo hay-adaha maalgeliyey waxay ku adkaysteen in dhulka diisay uusan ka mid ahayn garoonka. fikradaha taasi ka soo horjeedase waxay muujiyeen in marka la eego lacagta ku baxday ay magaaladu u qalantay garoon laami ah oo ka wanaagsan kan ay heshay. haddaba sidee lagu dhisay garoonka? maxay yihiin caqabadaha laga soo maray? lacagta ku baxday ma lagu dhisi karayay garoon ka tayo fiican? yaa iska lahaa go'aanka ah in garoonku uu noqdo mid jay ah? waa mawduuca barnaamijka galka baarista ee toddobaadkan. garoonka magaalada Baraawe waxaa maalgelisay hay-adda lagu magacaabo sanduuqa xasilinta Soomaaliya ama Somali Stability Fund oo ay hay-ado iyo dowlado deeqda bixiya ku jiraan sida Midowga Yurub, Britain, Netherlands, Norway, Sweden, Denmark iyo Jarmalka. maamulka koonfur galbeed iyaga waxaa loo xil saaray inay keenaan goobtii laga dhisi lahaa garoonkaasi. inkastoo magaalada Baraawe laga xoreeyay ururka Al-Shabaab bishii Sebteembar 2014, haddana maleeshiyaadka Al-Shabaab kama foga magaalada waxayna si joogto ah weeraro gaadmo ah ula beegsadaan ciidamada dowladda iyo kuwa AMISOM. shirkadda dhismaha iyo maamul goboleedkuba waxay sheegeen in Al-Shabaab ay weeraro joogto ah ku haysay dhismaha garoonka. laakiin caqabadaha amniga waxaa weheliyey kuwa dhinaca juqraafiga ah. Cabdulaahi Aadan Axmed Black waa wasiirkii hore ee duulista iyo gaadiidka ee maamul goboleedka koonfur galbeed. waxa uu galka baarista uga warramay sida uu ku bilowday dhismaha garoonka. waxaan xasuustaa 2016 laga soo bilaabo 11 jeer ayaan helicopter ku tegay aniga kula hadlaaye anagoo raadinaynay oo mar walbana dad aqoon u leh arrimaha aeroboorada aan geynayay dhulku habboon inaan helno. hawshaasu dhibaato badan baan kala kulannay. qalabkii wax lagu dhisi lahaa sidaan ku geyn lahay muddo dheer ay naga qaadatay. meesha lafteeda oo runtii uleys badan hadday noqon lahayd nimanka nabaddiidka ah oo dagaal badan lagula jiray niinooyin loo dhigaayay 7 kilomitir balaas 1 kilomitir oo airport iyo isu jira ambareesi meesha la yidhaha 8 kilomitir ee meesha magaalada u jirtaa. adiga conflict badan oo aan kala kulannay xilligii aan dhisaynay ayaa waqtiga dib u dhigay. waxaad ka hadashay dhibaato inaad kala kulanteen qalabka iyo sidii loo geyn lahaa wixii lagu dhisayay garoonka. dhibaatadaasna waxay ka imanaysay dhulka iyo meesha la marsiinayo oo amnigu xumaa mise dhinaca badda aad soo marsiinayseen mise ilaalinteeda? bal wax yar iftiimi meeshaas. absolutely labada arrimood. tan ugu horeysa qalabkii loo baahnaa oo wax lagu dhisi lahaa oo xamar yiilay oo qolada kambaniga ay haysteen sidii lagu gaarsiin lahaa ayaa dhibaata naga haysatay. sababtay tahay waa xamar iyo Baraawe in loo safro oo jidkaa la maro dhibaato weyn bay ahayd. qolada AMISOM aan la kaashanaynay laakiin way adkaatay in safarka jidka Baraawe iyo xamar isku xiraba in la maraa adkaatay. mar dambe oo intaan hawsha ku dhex jirnay waxaa bilowday in markab xamar wax ka qaadayay markii jidka uu go'ay already oo AMISOM logisticadeeda ay meesha tegi weysay. waxaa bilowday markab yar oo AMISOM ay adeegsanaysay kaasaa haddana waxyaalaha lagama maarmaanka sida shamiindada oo kale ayay qolada kambanigu ay saaranayeen. labadaa dhib way jireen. dhib saddexaadaa jiray oo qolada nabaddiidka ah waxay dadaal badan u galeen miinooyin badan ay meesha dhigeen inaan